shirweynaha saddexaad ee mu'asasada Al-Karam ee dacwadda iyo horumarinta Islaamka ayaa maanta si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay magaalada Buro ee xarunta gobolka Togdheer. Shirweynahaas oo ahaa mid ay isugu yimaadeen culimada lixda gobol ee Somaliland. Intii ay socday shirweynahaas ayaa waxay culimadu soo saartay 7 qodob oo muhiim ah isla markaana xidhitaanka shirweynahan ayaa waxa ka soo qayb galay culimada waaweyn ee gobolka Togdheer, barasaabka gobolka Togdheer, salaadiin iyo waliba waxgarad kale aad u tiro badan. Sheekh Ciise Maxamed Cabdullaahi waxa uu faahfaahin dheer ka bixiyay asbaabaha loo aasaasay mu'asasada Al-Karam isla markaasna ka shaqeeya guud ahaanba gobolada iyo degmooyinka Somaliland. waxaana kamid ah isagoo ka hadlaya sida tan haddaan tilmaamo mu'asasada Al-Karam dadku inta wax yaqaanaan injineerada yaqaanaan oo ka shaqeysa horumarinta bulshada arrimaha bulshada kala duwan haday diinta tahay iyo hadii arrimaha kale ay tahayba. mu'asasadan oo taqriiban 3 jirsatay 2012 laga aasaasay magaalada madaxda Hargeysa oo hadda 3 jirsatay. waxyaalaha ugu muhiimsan oo loo aasaasay oo loo sameeyay waxaa kamid ah horumarinta bulshada, dhaqanka, akhlaaqda, waxbarashada, in ummadda aynu ka mid nahay aan ka qayb qaadano inaan dhinaceena aynu qabanno. Sheekh Sharmaake Aw Muuse Xasan waxa uu isaguna halkaas ka akhriyay 7 qodob ay soo saartay culimada isla markaana ay ku soo bandhigayeen goobtan ee lagu xidhay shirweynahaasi. mu'asasadu dhammaan ummadda ugu baaqaysa alla ka cabsi iyo inay si dhab ah u qabsato xariga alle kaasoo ah xalka kaliya ee ay kaga bixi karto dhibaatada adduunyo mid aakhiraba. 2 mu'asasadu waxay ugu baaqaysaa ummadda barashada diinta islaamka iyo ku dhaqankeeda waana in ay soo dhaweeyaan isna garab taagaan sidii barashada diinta loo gaarsiin lahaa miyi iyo magaalaba ummadana looga saari lahaa jahliga. 3 mu'asasadu waxay u soo jeedinaysaa hoggaanka dhaqanka, hoggaanka diinta, hoggaanka siyaasadda iyo ganacsadaba inay u soo jeestaan sidii loo walaalayn lahaa loona islaaxin lahaa deegaanada khilaafku ka jiro iyadoo loo marayo dariiqa wada hadalka iyo garnaqsiga ku salaysan shariicada islaamka. 4 bulshada waxaa laga waaninayaa isqabsiga iyo khilaafka ka dhasha deegaanada la wada yaalo iyo in la joojiyo seeraynta lagu samaynayo dhuldaaqsimeedka kuwaas oo inta badan iyagu sababa isku dhaca beelaha wada degan. 5 si gaar ah waxay mu'asasadu ugu baaqaysaa in colaadaha soo noqnoqday ee deegaanka Kalshaale iyo Balli Diiriye loo dhameeyo lana xaliyo lana heshiisiyo beelaha walaalaha ah ee wada dega deegaankaas iyadoo ay ka qayb qaadanayaan dhammaan qaybaha bulshadu. 6 waxaan shacabka guud ahaan ugu baaqaynaa inay ka waantoobaan kana fogaadaan cudurka qabyaaladda oo curyaamiyay wax wada qabsiga iyo jiritaanka ummadda waana inay bulshadu dhammaan iska kaashataa daaweynta cudurkaas halista ah ee inaga naafeeyay dhan kasta oo nolosha iyo horumarka ku saabsan. Number 7 mu'asasadu waxay ummadda ugu baaqaysaa inay ka hortagaan meelna uga soo wada jeestaan isticmaalka ka ganacsiga noocyada kala duwan ee maandooriyaha kuwaas oo inoo keenay dhibaatooyin diineed, mid akhlaaqeed iyo mid dhaqaalaba. Sheekh Cabdirashiid Baaxeer, barasaabka gobolka Togdheer, isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqaafta gobolka Togdheer Sheekh Axmed Maxamed Saleebaan, Sheekhul Beledka gobolka Togdheer Sheekh Cali Warsame Xasan, Suldaan Maxamuud Xasan Xuseen, Suldaan Saciid Yuusuf Ducaale, Suldaan Cabdirashiid Qodax, Suldaan Maxamuud Guleed waxay dhammaantoodba si isku mid ah u soo dhaweeyeen 7 shirweynahan ee mu'asasada Al-Karam ee ka dhacday magaalada Buro ee xarunta gobolka Togdheer. Maxamed Cali Axmed Kaabe, wararka telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Buro.